الله هيا سكري سديسي ده هرت وريه ورسنا يا بابا يلا موتاي مركان أركي سكرينا حتى هذا كيف يقول نقضي سنة كيما كنا ضافي 2020 maxaa kugu leeyahay badna والله كورونا فيروسكي iyo xarigii waxaan ku lintiyan soo cadnay labada ma iyo xalmaay waxay igu leeyahay badnaa habeenkii Dubai soo socotay waxay sheegtay in abaheed corona virus u dhintay intii hargeysa ma waanu ballanay isla habeenkii un baan yar fakaro waxa saaran cudurka ku qaatay sidaas jacaylkii ku burburay waxay igu yaab badnaa taba inantiina ka boorashka wiil qurux badan baa agteeda taagan daawus walaalo ku soo dhawow challenge waqayaha fanka TV heego muqdheer ma sha Allah waa wariyii ugu horeeyay inana intan meel soo istaagay ka dheeraatay nuura ha qorsheys Allah haye marka la wariyo wareysanaya waxaan sii garanay kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudano halkani waa waayaha fanka TV aad kala socotaan aalada YouTube daawada haddii aad nagu cusub tahay si aad ugu soo biirto daawadayaasha waayaha fanka TV fadlan subscribe saar like iyo comment oo idinkiin hoosta noogu soo reebtaan raaci gambareelka si aad uga warhayso muuqaalada cusub وحوادي مليهاي والله قاهلايو ودلقو حسوستا والله قاهلايو ودلقو حسوستا كينو daawadayaal meel walba naga daawanaysaan sanad wacan oo wanaagsan halkaad naga daawanaysaan waa waayaha fanka TV aad baan idin wada salaamanaa sanadka sidoo noogu curtay anaga wanaagsan waxaan rajaynayaa idinkana inuu idinku curto idinkoo wanaagsan caaw waxaan ku suganahay hoteelka Beerta Libaaxyada ee magaalada Tan Hargeysa waxa barnaamijka idin daadin doonta hadii Allaah wadi li qadaro anoo nuur heega garabkayga waxa taagan abwaan soo dhaw waan dhawahay walaalo heega muqdheer meel maqal jiro waan dhawahay aad baad mahadsan tahay bar sanadkii aynu ka soo gudubnay 2020 maxaa kugu la yaab badnaa sheekadii ugu la yaab badnayd waxay ahayd inan baan la sheekaysan jiray inantu Ingiriiska joogtay maalintii dambe igu tiri aabahay xanuun duray baa ku dhacay dabadeetana inantu way soo baxaysay waana markii corona virus ku bilaabmay intaan dadka la xayirin dabadeetana waxay igu tiri Turkiga soo maraya si degdeg ah u imanaya Soomaaliya marka Soomaaliland bay ka soo degaysay inantii waxay igu tiri Hargeysa ayaan kuugu imanaya abaheedna duray baa ku dhacay habeenkii Dubai soo socotay waxay sheegtay in abaheed corona virus u dhintay inantii Hargeysa ma waanu ballanay isla habeenkii un baan yar fakaro waxa saaran cudurka ku qaatay sidaas jacaylkii ku burburay marka sheekadii igu leeyahay badnayd sheekadaas ay ahayd waa tahay tan garabkayga waxa taagan Allah hayaay sakari sideysi de horta wariyo wareysanaya waaba yara ma ogtahay markaan arkay sakariina xataa hadalkii baa igu noqday sakariya xasan raagay walaalo soo dhawow nuura heego muqdheer ma sha Allah waa wariyii ugu horeeyay inana intan meel soo istaagay ka dheeraatay ma sha Allah quruxda iyo jamaalka iyo dheehana wada arkaysaan sanad wanaagsan baan kula walaalo adiga iyo channel kan aan ka hadlayno oo ah YouTube-kii ugu horeeyay si qaar qof uleeyaan soo istaago waa fanaanadeena qaaliga iyo adiga walaalaad baan idinku mahad celinaynaa sanad wanaagsan baan idin leeyahay waxaad ka miitiin dadka احترام هان قدريو adiga iyo barwaaqalan shaba oo iyadana aan aad iyo aad ugu mahad celin fanaanadan taageero nuurayde sanad wanaagsan sanadkan baxaya 2020 waayo gaaraba dunida kaga tagaya qof kastaba wax ugu suntanaa wax badan baan rajeynaya hadii Allah wadi loo nafteena oo daayan 2020 qorshayaal badan baa jiro dunida
qaar baa dalka ka tegaya qaar baa dalka ku soo noqonaya qaar baa dhalanaya qaar baa guursanaya nuura maxaa qorshaysan allah haye markaan lahaa wariyo waraysanaya waxaan sii garanay inaad ugu soo kala jeedinayso horta sanadkaa waxaan leeyahay imika caawa ka wadayno ah ilaahay ha ka dhigo kii aynu ku iloobi lahayn kii hore aniga sanadka waxay ii qorshaysan inaan guursado kolka waa daadi bay iga soo baxaysaa waxaa isla haddii dhararka saa loo dhaafayo iyadu way ka bixin adaada guurko dee qofku markuu intaa wax kaa dhaafo ma arkay moogtay sanadkaa ma 6 bilood hore mise 6 dambe wixii waa kala gogo'ay maya 6 dambe waliba December bisha dhaxanta kaasiba tiraa 22 wax sakariya xasan raaga walaal sanad wacan oo wanaagsan baa kullayaad baa ku salaamaya walaal yaan chance kaga faa'iideysanaya dhammaan family-gayga meel kasta adduunka ka joogaan waxaan leeyahay walaal sanad wanaagsan walaalada iyo dunida ku farqisan waa shan oo salaamaya islaamtiga way gaadhaysaa maadaama cabdirasaaq xasan raage cabdullaahi xasan raage mustafa xasan raage qadan xasan raage iyo wiilkayga raayid curadkayga maasha allah isagu waa the legend one and only weeye aaba raayid dhalasho sanad wanaagsan sidaad arkaysaan badda wadayaalkaad nagala socotaan waa waayaha fanka TV imika waxay hor taagan alfanaan xaajiyare on leeyahay soo dhawow waan dhaway saaxiibkay Cadnaan Tasma horta rugtii halkan caawa heesay macaan baad ka qaaday waxaan ku yiri waxaad ahayd fanaanintii ugu saameynta badnaa caawa halkan la joogo aad baanan horta waxaan ku leeyahay hambal iyo hore u soco saaxiib sanadkii imika tagay maxaa kugu leeyahay badnaa waxay ugu leeyahay badnaa niyo horta waxay ugu leeyahay badnaa corona viruskii adduunka ka qeylsiyay moogta dadka taabta in la wada haya waxay igu yaab badnaa daba caasimadii Hargeysa koobka gobolada ay dad meel ka qaaday koob la ilaaha illa kaasa igu yaab badnaa kaasa kugu leeyahay corona ma dareentay adu corona imkan cid walba ku dhacay kaas Hargeysa aan ka kuma ogi sax kuma ay corona oo iska ilaalina ka ilaahay naga aad baa ku salaamay sidaad arkaysaan badda wadaya halkaad nagala socotaan waa waayaha fanka TV haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar imikana fanaankiini weynaa Mustafa Maano aad baa ku soo dhaweynaya brother haye soo dhaw wandaway walaal aad ma santahay sanadkii imikina dhaafay 2020 maxaa kugu leeyahay badnaa wallahi de walaalkani wuxuu watay dhibaato iyo mucjiso meeno corona inaga yaabiyay waxyaalo fara badan oo ay ka naxayna way jireen marka wadayaab buu sanadkani ma sha Allah caawa waxaad kamid ahayd fanaanintii aad ku waaweynaayay waxaan ku halka saameynta ku lahaa heesaadu macaan baad ka qaaday maxaad dareemisay wallahi de walaal dad jecel marka anaguna waxaan ku leenahay hore soo insha Allah aad badnaa santahay hay barwaaq qalanjo barwaaq oo soo dhawo waan dhawahay nuur aad badan maadsan tahay waxaan leeyahay adiga iyo waayaha fanka TV ba sanad wacan oo wanaagsan ilaahay sanadkiisa bash iyo barwaaqaha inagu gaarsiiyo aamin anaguna sidoo kale waxaan ku leenahay ilaahay caafimaad qab iyo waliba quruxdaas oo si socota kugu gaarsiiyo barwaaqo sanadkaana dhaafay 2020 bar maxaa barwaaqo kugu la yaabadnaa wallahi corona viruskii iyo xarigii waxaan ku lintii aan soo cabnay labadan way wax kala maarag ma jira waxaad aday xasuus ahaan barwaaqo ahaan kugu reebay kugu farxad badnaa oo sanadkaad ku xasuusato wallahi wax badan laakiin farxadda la iskama sheegay baa la hadii kale ilba lagaagala haadiya intaba waxa leeyahay barway noo qarisay barwaaqo maxamed xaashi waxa ku leeyahay sanad wacan oo wanaagsan walaalo dabadeel wali waxay noo socdaa barnaamijkii su'aalaha ahaa aynu dadka shucuurtooda ku weydiinay kuna aanu ku dabaaldegnay sanadka cusub ee 2021 haatan garabkayga waxa taagan fanaanda yar Axmed Jacayl Axmed soo dhawo aad baan u dhahay walaalo ma santahay Axmedow sanadka tagay 2020 maxaa kuugu la yaab badnaa ama maxaad ku xasuusataa sanadka tagay 2020 talo maxaa igu la yaab badnaa waxa igu la yaab badnaa markii aan la salaamin oo guryaha lagu jiro oo qof waliba kaliya socdo afkana waxa lagu xidho xanuunkii corona viruska ayaa igu la yaab badnaa wallahi horta kaasayna wada saameeyay qof walaaba kaas uu leeyahay halkan yaad ka salaamaysaa sanadka cusub bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed reer Soomaaliland reer Hargeysa asxaabtayda halkan ku sugan alfanaan xaajiyare Sakariya Cabdullaahi Axmed Saalax Atee barwaaqo qalanjo waa salaamayaa Sakariya Sidiis isaguna halkayga seegaya intii magacayga muuqayo garanaysa adigana waa ku salaamaya aad baan ka qanaa anaguna adigaan ku salaamanaa waa tay wali waxaan wada caawa wariyo wareysanaya markaan hor istaagan anigu arka wariyaba de warkii bay iga tagayaa ilaa dadka Salma Caweed inanta saxaafadda horta noogu qurux badan la soo dhawo waan dhawahay nuur aad iyo aad baad walaal mahadsan tahay de quruxdeena adiga bay qurxoon inanta dheer ee qalanjada waxay isku kay barbartaa waa qalad sanad wacan wanaagsan baan ku leeyahay taana ku siiyay xaybti sanad wacan wanaagsan challenge horta ku jirta waa waayaha fanka TV
bar sanadka imika tegay 2020 aan caawa sabootinayno salmaay maxaa kugu la yaabadnaa walaahi sanadkii tegay waxyaalo badan bay igu la yaabadnaa qaar aniga quseeyay qaar iska generala waxay igu yaabadnaa coronaviruskii sidoo kale waxay igu yaabadnaa maalmihii ciyaaruhu socdeen oo maxaan kuu sheegayay ay in badan Salma Boorash Salma Sidan ay la daba galeen waxyaalahaas aniga igu yaabadnaa runtii imise magac baa kuu baxay intii ciyaaraha gobolada Soomaaliland socdeen waxay igu caansanaa oo aan arkayay maadaama aan ahay dadka media wax ku qorqora badanaa waqtigooda Salma Lambaas kabtanka gobolka Soole Ablaha ayaa midooda ciyaara iyo maxaan ku sheegay intaas unba inantiina ka boorashka siisay walaa shaqaale Salma Caawed aan waxaan ku leeyahay sanad wacan oo wanaagsan aadna waa ku salaamaya waa tahay barimka waxaan ku soconnaa xagga iyo dadweynaha wiil qurux badan baagteeda taagan daawus walaalo ku soo dhawow challenge waayaha fanka TV waan ku dhawahay walaalo waan ku dhawahay sanad wacan oo wanaagsan baan ku leenahay sanadka aynu caawa sabootinayna 2020 bar maxaad ku xasuustaa daawus sawaadi ahaanta wallahi ahaanteeda waxyaabo badan baan ku xasuustaa waxyaabo badanna uu igu soo kordhiyay sanadkaana waxaan leeyahay anigana nafaanteedana uu ku leeyahay sanadkaasi waxyaabo badan oo kala kulmay haday farxad noqoto iyo haday noqotoba murugaba jirto waxyaabo badan oo kala kulmay sanadkaas kanna waxaan sugaynaa waa wixii ilaahay noo qoran inaan isagana kala kulanno insha Allah taala aad baad maasantay walaal anaguna waxaan ku leenahay sanad wacan oo wanaagsan waa tahay xaq garabkayga waxa taagan wiil dhalinyaro Mustafa soo dhawow walaal qali Mustafa caawa sanad baynu soo gabagabaynaynaa 2020 bar sanadkayna dhaafay 2020 maxaad ku xasuusataa ahaanta wallahi sanadkan 2020 ka waxyaalo fara badan baan ku xasuustaa waayo waddankiyo coronavirus ka dhacay oo dadkooda tabcaaneen oo qaar dhinteen waxaan ku waxyaalo fara badan la soo koobi karin wallahi walaal markaan qiyaaso aan laftirkayga saameyn weyn ugu lahaa saameyntaasoo dee ma garanaysaay waddankii isbedel weyn ku yimid oo dadka deegabigeena waddankii oo dhan dadkii saameyn weyn baa ku timid baa oo kuda dhacday marka wallahi xusuus badan buu leeyahay wala xasuusan karaa aad baa la xasuusan adoo ugu duwan yahay aad baan ku salaamana waxaan leenahay insha Allah